السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنا ورسن شيخ محمد جنال كداونيسان وفردوس إسماعيل جنال وبرنامج كأني حل انتقالات كقويسك برنامجي أنا أنت دهيني ما شاء الله أنت فردوس أنا وقص الله بنيس حلنا هاي فردوسو مرد وحوي ومشاهدي بسودو إن شاء الله بإذن الله الكريم بيجي مرد وحوي الله الرحمن كوحن لنا النبض إفكاه كانوا إلهي الرحمن ها يدي السجبة عافي ماذا إنه كأرجنا بإذن الله هذا حياتكم السلام يا جنالك فردوس إسماعيل دتك كحران دت قبل شرف بدن أورنتي عزي يا كرامله وأن لي هاي هراي الصعدة مروى البندي رجلنتي هنا ووحى أباهن هاي أدب إذن السلام يا xalinta khilaafaadka qoyska waxyaalo badan baa horta hore ugu soo qaadanay waxaan ku soo qaadan doonaa insha Allahu Rahmaan oo maanta aan ka hadli doonaa waxay tahay maalin hore baa gabar aan wax sunahay oo Kenya joogto yaa runtii waxay soo weydiisay su'aalo dhowr ah oo ay tiri warsanay waxaan ka daawadaa janalka Firdaws Ismaaciil xalinta khilaafaadka qoyska waxay tiri goorma saa u baratay tiri xalinta khilaafaadka qoyska ma sha Allah anigi bay iga qoslisay aad ba runtii uga mahad celinayaa su'aalaha la soo weydiiyay waxa kamid ahaa gabar baa waxay tiri maxaan ku yiraahdaa waxaan leeyahay reer waxaan deganahay magaalooyinka Afrika magaalo kamid ah odagaygu waxay tiri ma sha Allah tabarakallah dad isku fiican baynu nahay laakiin waxay tiri runtii mar walba inagu dhex jiro oo mar walbana runtii waxay tiri dhibkeena uu ka bilowdaa qoyska uu asaga ka dhashay reerku asaga ka dhashay ayuu dhibka ka bilowdaa dhibka wuxuu ka bilowdaa reerku isaga ka dhashay marka sidaanu isugu fiicannahay oo nu isugu wanaagsannahay oo dad wada socdo u nahay oo dad reerkoodii dhaqanaya aynu u nahay baan waxaanoo aanu dhexdeena imaaday tiri buuqayli borbaleem aan dhammaanin okay marka su'aal baan weydiiyey waxaan ku yiri reerku miyaad isla degan tihiin maya waxay tiri wax yar baan soo jirnaa wax yar ma malaynaya tiri laba guri inay noo dhaxeeyaan waxay tiri reerkoodu marka xagga hooyadiina way ka cabanaysaa waxay tiri asagu markay arkayso ma sha Allah tabarakallah maba laga sheekeen karo wanaageedii fiicnadeeda isagii guriga markuu ka maqan yahay waxay tiri waa ila qaysaa sida xabadkaniina dalaq ya rabbil alamin hooyadaas waxaan leeyahay horta hooyaa tahay hooyo markaa tahay ood guriga wiilkaaga soo booqatay ood guriga wiilkaaga imaatay ood guriga wiilkaagii aad istiriga caruurtiisii farxad ku soo eeg inaad gabadha stress ku furtid oo buuq ku furtid oo qaylo ku furtid waa laga fiican yahay gabadhaadii oo kale ka soo qaad soo kama baqaysid gabadhaan dhibka aad ku haysid in gabadhaada hadhow ay ku dhacdo ushaas ama sida gabadhaada loola dhaqmo sida gabadha loola dhaqmayso gabadhaada loola dhaqmo waxa weey waa dhibinteeda la eg talada aan gabadha siinayo waa gooni laakiin waxaan leeyahay mar hadday taa ku qabsato ood aragtid ibni aadanka waxa weey waa ishiis qaate waxa aad u sheegaysid isaguna igama qaadanayay tir haddaan u sheego xitaa iga qaadan maayo isagu marka waxaan leeyahay xalka wuxuu kuugu jiraa marwadaada waxay ku tiri xaaskaaga waxay ku tiri horta inaad qaadatidood maqashid hooyada xumay kuma dhahayno laakiin waxaan ku leenahay gabadhan bal horta warka ka qaad oo gabadhani dhagayso intaad meel la fariisatid oo xalkii raadi oo nabad reerkan dhaxdhig haddii aad isleedahay reerkaaga meeshan kuma badbaadayana meel ka yara fog geyso oo ka raro
laakiin ugu horeyn xalka adiga raadi waxaanad ku raadisaa si maslaxa ah waxaad ku raadisaa si waaridnimadii meesha taalay aysan u dhammaanin waxaad ku raadisaa si labadii qof aad isugu keeni kartid ood u dhihi kartid waxaad tihiin gabar iyo waaridkeed gabar iyo waaridkeedna ma kala maarmaan ninkan iyo waaridkiisna ma kala maarmaan ilmahan yaryare ayayda u tahay meesha joogo waxaa fiican in aysan wax xumaana dareemin laakiin yaa laga rabaa khilaafkii meesha yaallay inuu xalliyo yaa laga rabaa khilaafkii meesha yaallay inuu dhammeeyo adigaa lagaa rabaa walaalkayow adigaa lagaa rabaa gabadhan xaaskaaga ahna waxaa laga rabaa intay dul qaadan karta inay dul qaadato waaridku waa loo dulqaataa sidii hooyada aad ugu dulqaadan lahayd inaad ugu dulqaadatidaa la rabaa sidii hooyadaa aad wax ugu sheegi lahayd inaad ugu sheegtaa lagaa rabaa insha allah biidnillaah waxaan leeyahay marka waarid markuu meesha joogo oo waarid imaado waxaa la rabaa cizi iyo kala dambayn inay meesha taallo haddii aad meeshii aragtay inay wax cizi iyo kala dambayn ay meeshii oolin waxaa la rabaa in reerkii meeshaas aad ka fogaysatid ood ka kaxaysatid ood meel kale geysatid meel adiga ku anfacaysa aad geysatid meel adigu aad isleedahay waa kuu dhowdahay reerkaagiina waad ka maamulan kartaa reerkaagii kalena waad u imaan kartaa oo aabbaha iyo hooyada iyo faamilkaagii qoyskaagii kamaadan fogaan meelaad isleedahay gabadhaadii meel ay kuugu ammaangelayso qalbigeedii ku xumaan maadaama iyadu ay rabto reerkeedii ninkeeni maxaan ku rahdaa ninkeedii iyo ay maxaan ku rahdaaye iyo reerkeediina ay rabto ay isleedahay meelaad ku badbaadaan hela adigu maxaa lagaa rabaa marka adigu waxaa lagaa rabaa dadaalkii heshiiskii hadduu meesha imaan waayey maslaxadii hadday imaan weysay xallintii hadday imaan weysay inaad la tagtid reerkaaga meel ayagu ka durugsan oo xoogaa isu jiro maalmaha la isu soo xiisaayo oo la isugu imaanayo laakiin haddii meel dhowo halakana la isu fadhiyo daqiiqadiiba inta lasoo laabtay guriga la imaanayo marka adigu sii baxdidna waxa doonto la sheegayo intaad adigu joogtana la ammaanaya gabadha taa laftinkeeda waxaa lagaa rabaa inaad u dhabagashid gabadha markay kuu sheegta dhegayso u dhabagal saad ugu dhabagashaa waqtiga ay hooyada guriga imaanayso fiiri waqtiga ay hooyada ku soo aadan tahay guriga iyo waqtiga ay imaato warayso weydii gurigiini ka soo dhul bilow gurigii reerkiina tag ka soo bilow halka iyada marka gurigiini tagto hadday hooyada joogto oo hooyada halka fadhido oo guriga iyada joogto ugu tagto waa khayr barakiya nur waa sidaan rabnay waa khayr haddii lagu yiraahdo hooyo way baxdo reerkaagii bay soo booqanaysaa ilmihii bay aaday hadda waxaad ka soo war doontaa gabadhani waxay kuu sheegtay inay run tahay iyo in kale waxaad ogaan kartaa meesha wixii ka jiray tartiib baad u imaanaysaa dhagayso wax meesha ka dhacayo fiiri wax meesha ka dhacayo ka warhay wix meesha ka dhacayo nin ragu alla kaa dhigay ka bacdina dhexdhexaad adaa lagaa rabaa inaad keentid labadan reer adaa u dhaxeeyo reerkaana waa ku dhaleen gabadhaana waa gabadhi aad dadka dhan ka soo dalbatood ka soo dooratood soo guursato carruurta ku dhashay adigoo hal ah ay laba kaa dhigtay adigoo labay saddex kaa dhigtay allah raxmaanka siiye haddana afaray kaa dhigtay shanay kaa dhigtay ma fahantay waa beertaadii adiga kuu taalay xumaan ma laha hadday iyadu gar daran tahayna waad ogaani hadday hooyadu gar daran tahayna waad ogaani inkastoo dee waaridka la dhaha gartiisuna waa gar gardarradiisuna waa gar hadalkaa hadal qalloocan weeyaba waaridku gartiisu waa gar gardarradiisuna waa gar waa sax laakiin waxa yara qalloocan hadda qofka gardaran waa la qabtaa qofka gardaran waa la yara qabtaa waxaa la dhahaa waxaas waad ku gardaran tahay aakhiradaadina uma fiicno adduunkaagina uma fiicno ee iska daa laakiin haddii la dhaho gartaadina waa gar gardarradaadina waa gar
haddee sow un dhoobadii lama walaaqanayo, sow meeshaas wareer badan kama imaanayo, sow isnacitaan badan kama imaanayo, sow guri burburay kama imaanayo, sow caruur kala dhuntay meeshii ma imaanayaan. waxaan dhihi lahaa aniga u dhabagal fiiri waxaa xaalka meesha ka socda, kadibna xalki raadi. xalinta khilaafaadka qoyska mar walbaba horta labada qof inay iyagu isfahmaan bay ku xalliyaan wax. adiguna waxaa isku daydaa inaad gabadhan fahantid dhibka ay sheeganayso. in adeerow gacaliya gabadha waxaad fahantaa dhibka ay sheeganayso. gabadhan horta fahan, ma jiraa mise ma jiro, sax miya mise waa qalad, horta bal raadi, bal eeg. markaad raadisidoo u dhabagashid xalkii wuu imaanayaa. laakiin haddaad hadalkeedii aadan soo qaadanin, hadalkeediiba aadan fiirinin, hadalkeediiba aadan eegin, oo dahdid waa waarida faraha ka qaad, waa waarida faraha ka qaad, waa waarida faraha ka qaad, ayadina waxay aaminaysaa inaadan danaynaynin, bay qalbiga gashanaysaa. marka si xallin aad u heshaan oo adiguna xalka aad u keentid, ayaduna ay dulqaad iyo samir u yeelato, adigu madaxa u weynayo waxaad dhahdaa arrintan waan dabagelayaa, waana fiirinayaa. qalbiga qofka waa la qaboojiyaa, qabooji qofka qalbigiisa. laakiin been baad sheegaysaa ee naga tag, hooyaday wasaas ma ahee ka leexo, hooyaday baa lagu tusay, hooyaday baad arki karin, hooyaday baad neceb tahay. arrinku saa ma aha. gurigaagana saa kuma taagmayo, reerkaaguna saa kuma sii haysanaysid, ee waxaad ku haysanaysaa inaad xallisid waxa dhibka ah oo meesha yaallo. waxa reerkan dhex yaalla inaad xallisid ayuu reerkaaga ku dhisnaanayaa. gabadhan inaad hadalkeeda maqashidood qaadatiduu reerkaaga ku dhisnaanayaa. wuxuu kaloo ku dhisnaanayaa inaad ayada mar walbaba dhahdid samirka badi, dulqaadka badi, hadalkeeda ha diidin, ee dhegayso dhegta u raarici, ha ka soo qaadin waxaan jirin. insha allah biidni illaahi raxmaan gabadhaa kilibkaas inay gaarto ayaan jeclahay, ayada iyo odageeda iyo xaajigeedaba runtii ay dhegaystaan, xalliyaanna arrinta dhexdooda taallo. ayadana waxaan leeyahay samirka, dulqaadka iyo dadaalka intaba badi, reerkaagana ku fara adkow. xalli adigoo oo nool yaysan xallin la-aan noqonin. adiga oo taaganoo gabar ahoo karti ilaahay ku siiyey inaad wax xallin karta isku day. adigoo hooyo ah oo gabar ah oo taagan oo xaadir ah oo marwo ah oo reerkaagii haysto, xallid la-aan yaysa kaa noqonina. inaad wax xallin kartid adiga xitaa isku day. kartideedii iyo awooddeedii la imow. waxaad awooddeedii la imaataa inaad si tartiiba wax uga dhaadhicisid oo dhahdid arrinku saame ahe waa sidan. inuu kaa qaata isaguna waa muhiim. intaad meel wada fadhiisataanna inaad ka hadashaanna waa muhiim. in aad quruxdiinna iyo qoyskiinna aad ka shaqaysaanna waa muhiim. ilmihiinna idinkugu fiicnaanayo, reerkiinna idinkugu fiicnaanayo, caafimaadkiinna ku jiro, quruxdiinna ku jirto, jacaylkiinna ku jiro. labada qof markay iyagu isxallinayaan, kalsooni buuxda iyagu isku qabaan, jacaylkoodu ma baaba'o. laakiin haddii kalsooni darro ay meesha imaato, liiditaan baa meesha imaanayo, kalsooni darraa meesha ka dhalanayso, kala tag baa imaanayo, ilmo baadi ahaa imaanayo, reer burburay baa imaanayo. kadig marka intaas adiga xalli khilaafaadka qoyskaagana marayuusi si fudud kaaga burburin. barnaamijka xalinta khilaafaadka qoyska waxaan kusoo xirayaa halkaas. waxaan leeyahay dhammaan asxaabta ugu jirto Fardowsa Ismaaciil Channel, waxaan idin leeyahay waa anigoo warsan Sheekh Maxamed ah. waxaan idin rajaynayaa khayr iyo barako iyo nuur inta nooga soo laabanayso. Fardowso waxaan idin leeyahay insha Allah barnaamijyada inaad sidii u sii dhagaysataan, subscribe-ka iyo share-ka iyo like-ga waa xaqiina insha Allah biidnillaahi raxmaan. waxaan idin kaga tegayaa salaamu alaykum.